haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena fadlan subscribe dheh. Sheekadan waxa ay ku saabsan tahay ay xumida kibirka iyo guuldarada gardarada laga dhaxlo. Waaba waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabi jirtay. Wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuwooda ugu waaweyn sida maroodiga, libaaxa iyo gariga, iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada, shimbiraha iyo bakaylaha. Maalin maalmaha ka mid ah xilli ay jiilaal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorku ahaa uu hor socdo. Sagaarada keeda labka ah ayaa af Soomaali atoor lagu yiraahdaa. Markii ay ceelkii dul tageen oo ay biyihii cabeen baa atoorkii oo calooshii buuxsaday ayaa mar qura wax ku soo dhaceen. Asagoo hogaaminaya sagaaradii ayuu ceelkii inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana dhagax weyn afka ka saaray. Ilayn kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaa kadib duurjoog dambe inaysan ka cabin ceelka. Muddo gaaban kadib baa waxaa meesha isa soo dhigay maroodi iyo gari oo haraad bastood la ah oo inta kolkoodii soo galay aroor ah. Kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeen baa waxaa u muuqday wax ayna filanayn. Waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo dhagax afka ka saaran iyo atoorkii oo hareer taagan. Markaas bay la yaabeen, hase ahaatee cidda falkaas ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumaysan soo boodine way la warameen. Maroodigii ayaa ku yidhi, waryaa atoorow, qorxeed xun baanu ku jirnaa, haraadna waan la liidanaaye, hana oomin. Ceelka aad ciidda ka buuxisay anagaa qodaynee geedkaas iska harso, hadhowna wax biyihiisa afka saaro adiga ugu horeey. Hadalkaas qawowse atoorkii wax uguma dhigin. Haddiiba taladii la soo jeediyey uu ku gacan seeray buu asagoo yasaya maroodigii ku yidhi, ceelka cid ka cabaysaa ma jirtee, calaacalka intees ka daysaan xoog iyo itaal kaga caba, haddii kale sabaxanka igala kortaga. Maroodigii ayaa asaga oo aan caroonin markaa isku dayay inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo. Wuxuu u faahfaahiyey aaya xumida kibirka iyo guuldarada gardarada laga dhaxlo. Wuxuu u sheegay in ceelka loo siman yahay oo aan ahayn mid uu asaga gacanta ku qotay ama uu aabihii ugu haray. Haddana wuxuu soo xasuusiyey in isaga maroodiga ah iyo gariga mar haddii ay ceelka ka cabaan in ay muddo dheer kala maqnaadaan ceelka, halka uu atoorka yahay midka dharaar walba iska ag jooga ceelka oo waraaba. Sidaa darteedna ay ku habboon tahay ayadaa dani ugu jirtaaye inuu xagga nabadda u xagliyo oo in ceelka la qodo uu ogolaado. Ugu dambayntii wuxuu ku cabsi geliyey in asaga maroodiga ah uunka eebbe ugu xoog badan yahay, taana uu ku ogaan karo geedaha qurca ah ee inta uu jiridda ka siibo dhulka soo dhigo. Hase ahaatee waxaas oo waana ah iyo waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama beddelin. Jawaab kale sidii loogu sugayay buu atoorkii yidhi, idinkoo haraadsan noqda, haddii kale dirir laysku baaba'a ayaa goobta ka dhici doonta. Talo xumidiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ugu muujinayo bahalada waaweyn ee meesha taagan. Maroodigii oo markaas ka hor aan caroonin ayaa carooday oo ciil la madax wareeray. Mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoorka nafta dhaafsiiyo oo uu kibirkiisa ay doqonnimada weheliso uu ku eedsiiyo. Markaas buu dhagihiisii balbalaarnaa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala qaaday
ku dul saarooday oo gacantiisa weyn madaxa kaga dhuftay. halkaas oo isla markiiba atoorkii maalaabaha ahaa ee kibir ku qaaday ku baktiyey. dabadeed markii sidaas hogaamiyahoodii loo dilay bay sagaaradii meesha isaga carartay. sheekadan waxay ku tusaysaa in eebbo weyn maahine cidi kale kibirka ay ku hoogto oo ay ku ba'do. waxaa jira maamahayo sagaarada ku soo aroortay sida harag sagaaro, iga kac mooye iga durug ma leh. daawade, haddii aad danaynayso inaad barato luuqadda ingiriiska, waxaa diyaar ku ah macallimiin khibrad u leh oo u dhashay luuqadda oo kaa saacidaya kuguna baraya muddo gaaban gudahooda. haddii aad danaynayso linkiga descriptionka ku jira ku dhufo, kadib Facebook ama Gmail kii kuu fudud ku gal. macallimiinta badan ee meesha ku jira midkii aad isleedahay ka dooro adigoo fiirinaya qiimaha iyo khibradda iyo saacadda ugu wanaagsan. haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena, fadlan subscribe dheh.